Abu Muhammad al-Adnani, the man who orchestrated the Islamic State group's attacks abroad, was officially declared dead by wararka ka soo baxaya dalka Syria ayaa sheegay in duqeyn dhanka cirka lagu dilay afayeenka kooxda Daesh Abu Muhammad al-Adnani. Duqeynta ayaa la sheegay inay ka dhacday deegaanka waqooyi bari ka xiga magaalada Elab. Abu Muhammad ayaa sidoo kale ka mid ahaa abaanduulayaasha muhiimka u ah kooxda ISIS ee wadanka Syria. warbaahinta ku hadasha afka kooxda Daesh ayaa shaacisay in hogaamiyahaasi uu ku dhintay duqeyn dhanka cirka ah kula dagaalamayeen xoogaga ku sugan magaaladaasi. Abu Muhammad ayaa lagu xasuustaa filmaantii uu shaacin jiray isaga oo inta badan ku baraarujin jiray taageerayaasha kooxdaasi inay weerar ka geystaan gudaha dalka Yurub, waxaana la sheegay inuu ku lug lahaa weeraradii ka dhacay sanadkii hore wadanka Faransiiska. Dawladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in diyaaradaheega ay duqeyn la beegsadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ISIS, balse ayna xilligan xaqiijin karin inuu hogaamiyahaasi ka mid ahaa dadkii ay ku dileen duqeyntaasi. Waa Cabdiraxmaan Jaamacaye, Raya TV.